maanta asxaabta waa idin salaamo aniga waa Sheef Mahad casharadii ayaa socday insha Allah meesha 60 baa lagu soconayaa waxaan calaamada digniinta la siiyay iska ilaali arday baa meesha maraso gaabi baawurka tan waxa waa calaamad wadada way soo yaraanaysaa waana macnaha askari jiifo maanta waxaan bilaabanay insha Allah halkan waxa weeyaan waa overground Stella waa meesha uu dadka gooyo أنا وحن في رياحات كان باور كسيف يعني سو قابي ترتيبنا وسع مالها سكولاتي وحبا كدو هذيك أوفركم حتى يدرو الباور بربرنايو يا حقوق سعة المهمة ماشي يعني مركز إن شاء الله هذا مرينا وحافظه ننعيق سو قبصه سو قابي باور كسو قابي ما بقى تقال هذيك وحتى قانا إلا صعدك ليه باور كسيف يعني سو قابي مرة بحاف يعني ترتيب وسعة أفرض أنت بدك قرده ما دام بربرتها صدق كسوع هدو ذي لك هيري دون مركز ولا كده marka insha Allah halkan wadada garan maraysan waa baaskiil baa maro ee dadka lugeynaya marka wadadan waa laba fiil oo macnaha qadna waa dhinaca saadin sheegay baaskiilku waxa soo socda macnaha waa qatar waa in la iska ilaashaa mararka qaar markaad midig u leexanay sidoo kale waana iska fiirsaa muraayada aniga ma muraayada igu xigto kale soo gaabi meeshan wadada way soo yaraatay soo gaabi gaariga ayaa naga leh marka asxaabta qaaliga insha Allah maxay ahayd qofka markuu baaskiilka wadadan dhinaciiga marka waxa mara baaskiil baa mara qofka darawalka xagga dhinaciiga fadhiyo waxa loo baahan yahay inuu muraayadan dambe fiiriyo markuu midig u leexanayo inuu fiiriyo muraayadan dambe waxa la dhimashada qarsoon because baaskiilka waa inaad iska fiirsaa muraayada dambe because waa dilaysaa baaskiilka haddana muraayada dambe iska fiirnaa inuu urdaya because midiga u leexanaysaa asigana wadadan ku jira adigana midiga u leexanaysaa marka waa inuu qof qoorta wada jibiyaa oo fiiriyaa muraayada iga dambayso waa inuu fiiriyaa marka insha Allah maanta casharadeenna waxa weeyaan insha Allah yani saadii sheega waxaan ka caawin doonaa dawladda ka dhigo baabuurta casharo kaamil oo ugu talagalay yani shuruucda wadooyinka iyo baabuurta iyo maxay tolo ayaan maarta sameynaya maalin cuntooyin insha Allah hadda maxay overground Stella maraya anigu haadba muraayad halkan igu taal waxaan fiirinayaa mar walba darawalka xaquu fiirinaya marka overground Stella oo la soo gaaray insha Allah waa inuu darawalka fiirin karo meeshan waa 60 kaliya ku socon marka darawalku waxa loo baahan yahay insha Allah maxaa la dhahay inuu yani maaragtay uu fiiriyo maxaa la dhahay ma dhaw leexnana midig bidix oo bilikayso soo gaabi marka haadkaaga waxa fiirisaa bidixdaada fiiri ku laabada way marka perfect tartiibna soo qabso balaashirin samay marka saxaabta insha Allah yani cashirkeena maanta waxa waaye insha Allah waa gaariga wadistiisa iyo wadooyinka sharciyada jiro cashir dhan oo toos aan u bixinay waa insha Allah oo ardaygayna markaan siinay idinkana idin siinay insha Allah meel waxa imaanay tuleel korkaasna baawur ka marto qof ayaa soo dhax maraya saad arkaysaa waxa ku taalo calaamad baa meeshan ku taalo calaamadan gaduudan macnaha waxa waaye baawurka soo socdo ayaa ma aragtay baawurka soo socda ayaan ma aragtay ayaa naga leh anaga guduud baan kor baan u soconaa anaga waa inaan istaagnaa ma fahanti marka baabuurka loogu talagalay inuu maro mitirkiisa waa 4.4 mitir inuu maro 30 meeshan waa lagu marayaa marka hadda baabuur baa halka soo socda ma aragtay aan sugaynaa baabuurkan aad meesha soo maray asiga naga la wadada waa inaan sugnaa markuu asiga soo dhaafo ayaan anagana soconaynaa marka baabuurku ma soo jiro marka marna baabuurka kaale soo socda marna adiga ayaa la wadada overground Stella ku sheegay waa kan waa in dhinaciis ka fiirsaa baaskiil iska fiir dhinaciis ka fiiri okay marka toos aan u socon doonaa insha Allah tartiibta toos aan u socon doonaa marka asxaabta maxay toole toos nood halkan baarkina ka buuxo baabuur insha Allah كترنا مرايده asxaabta qaaliga marka waxa waa qofku waa inuu tartiib iskaga wada meeshan waa tartiib aan loo socdaa cunug ordaya ka soo bixi kara baabuurta hortooda baabuurta cunug baa ka soo dagay markasta waxa loo baahanaa maxaafada marka dhaxmaysid trid ku socotid cunug ordaya geeska ka soo baxayo break ka baqab kartaa dakoonta ku socdo waa dilaysaa cunugii marka waxaan qaadanaa midig meeshan waxa weeyaan waa baaskiil baa maro bidixna fiiri midigna fiiri idiga baaskiilka waxa laga yaabaa qaarkood baaskiilada ka badagayaan dadka qaarna waxa waa ayaga ordaayo kiistaag baabuur baa soo socorto baabuurtaana dhaafto marka haadkan kore yani aniga baabuurka ay soo daba socda ayaan fiirinayaa haadkan waxa iskala darawalka baabuurka wado
واسعو كرنا دوح كسو جرى ملهم marka aniga muraayadan waxaan ka fiirinayaa darawalka baabuurka wada ayaan ka fiirinayaa indhihiisa ilmahan oo kale iska jiro waa iska ilaalisaa waxa ku orday marka asxaabta qaaliga insha Allah muraayad haydkan aniga ayaa fiirinaya baabuurta soo daba socoto ayaa halkaas ka fiirinaya aniga muraayad haydkan waxa iska la darawalka baabuurka wada perfect darawalkan ma sha Allah kalsooniyaan ku qaba 10 badan baan siiyay darawalka duu igu cusub yahay barbarad yahay way waa adag tahay inaan maaragtay aan 10 kale nisiyo laakiin darawal ma sha Allah fiican oo maaragtay markuu ila socdo waa gabar ma sha Allah aad taxadirkeedu u fiican yahay 10 badan aan siiyay that's why markaan aan duubi kara ma 10 kale idinka nisi kara gacantana way u fadhisaa ma sha Allah si fiican gacanta ugu fadhiisiyay marka hadda meeshan waxaan ku imaan doonaa waa school waa bus hall plat dhisma ka socdo meelaha kale waxa loo baahan yahay inaad controlka badisid dhintid xawaarahaagana aad dhintid school weyn ba xaggaas ku yaalo waa meel bas laga raaco waa meel isgoys kala ku xiga hadana dadka imaarada maraan hadana meesha baska laga raacay waa meeshan anaga marka hada midigan u badanina insha Allah midigan u tuuran ambalka tuuran doona ma bidixan aadi dhinaca midig iska fiiri midigna iska fiiri stack gelin wadada barbiyo hada waa geli karnaa marka soo marka wax ku soo jiro malahan tan wadada weyn in saaraysa ii fiiraha laga wada ma fahanti highway marka highway maanta ma fuulan insha Allah علامات تصودا من فلارته وحاو وددان ayaa leedahay waa falaarta hadda ni hor maana waan ku tusaya meesha waa deegaanka si fiican u soo gaabishid isku day si fiican u soo gaabi baabuurka si fiican u soo gaabi baabuurka si fiican u soo gaabi konton ma ku wada si fiican u soo gaabi gaariga 40 ma ku qoran waa qalad in 40 ku wada meel konton ah dhinaciga hayso waxaan aadaynaa dhinacaasi wiiliski barkinadan galina duulay galiyo meeshan calaamadan waa rondel calaamadan oo jeedid waa rondel wadada waa laga leeyahay waa dhinac baabuurta dhinac bidix ka soo baxayso ayaa naga leh marka gaarigan saas uu taagan yahay baabuurta dhinacaas ka imaanayso ayaa mar walba ka leh waxir madax la gal wadada naga fiir baabuur maxaa soo socoto ha waa naga leeyihiin baabuur baa soo socoto way naga leeyihiin sug taagnaana anaga sida kuwan kala gacanta ma boobsi karno hadda waa geli karnaa marka soco dhinaciguna soo wada qabso because waa rondelka waa laba fiilo hadda dhinacaas kala gashid baabuurka dhinacaas ka jira ku dhacaysa marka waa dhinacayga midiga daysta waa inaa midig haysta hadda bidix haystin waa inaa bidix haysta hadda midig u leexanayso waa inaa midig soo qabsata hadda bidix u leexanayso la wareegayso rondelkan waa inaa qaybta rondelka hoos ka qabsata oo bidix la wareegata bartana haysanayna insha Allah soo gaariga 40 wadadan waa 40 kana ku soconayna marka calaamadan waxa waaye waa iska ilaali waa iska rijiifo calaamadaas iskala jiif waana kan iskala jiif waan kormeena overgongistal la jiro baaskiil baa soo maray xilliyada samarka oo kale waa khatar soo gaabi si fiican soo gaabi xilliyada samarka waa khatar ma sha Allah kan uu bil kasta waa kiistagana because yani waan xushmeynayna baawarka markuu soo bil kasta waa wadada siina overgongistal waa halkan marka aniga midiga u tuurnaa midiga u leexanayna because hada overgongistal waa iska fiirsan darawalka hada fiirna meesha ku masquulsan yahay baaskiil baa maraya hadda waan tusaya dad baa maraya waad arkaysaan soo markaan dad baa maray baaskiil baa maray waxa loo baahan yahay inuu maarata meeshan kale taxadir badan qofka uu ka sameeyo baaskiil halkaas ku soo orday soo baxay halkaas ku korday soo baxay waxa loo baahan yahay inuu darawalka hay'ad ka fiirinaa inaad fiirinaysid waxa soo dhan waa inaad ka dhistaa darawalka waa inuu macnaha dhinacyo badan waa inaad ka dhistaa darawalka haduu Ilaahay ka dhigo asxaabta 10 waxaan sii doonaa insha Allah oo nadiifa oo sax toos u socdaan aniga laax ku marin iyo sheerta iyo like waa